haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back. haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto, share dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato, like gumaaha lacaga noo saar. Please subscribe, like and share. Thanks. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي سومالي محمد ملك استود الدونك كجوكتان وولاشين أبحر سمائي مركلة إيطالة تلعادة أسبوعا وحن قصة قاضنا يا وآد إيجاجي يابشي ولا ليالا وحن ليابي داد كينا كوا وليب أرمها بالشدة وذا بدن كوت وحن لغيابا إن دادك إيهين هقاميال هقامية دادكي بالشدي إنت ذاك الهقامينية أو أولولينيا إنو بالشدي أصدعيو معلومات كوضو خيرك وناقا إن حق علمك حق إن سكولة أما حق عافماتك أما حق الله ينقطه سيدابي كودعي كرتا إن مرولبا هدي إنجليز كو هادليسيد أو صومالي كو هادلينين مرولبا أو أدلاد هاي برشدي بان أو أدفكيت غرينا يا أما برشدي بان أو دودة يا أما أو أهي هقامية أما أنو أهي هرتشوك أما ليدر هاداد أفكي جيبا أدن كو هادلي كرين سيداباد إيه هقامين كرتا تاس ومد أباهن إن أنغو بدن فلنقينو marka hadii ay tahay in aad doonaysid inaad aniga fariin ii soo gudbisid oo aad fariintii igaga soo qaaday dadkii hogaamiyayaasha kale oo aan afkayga ku hadlin laakiin adigu aad tahay hogaamiye anigi ii ah imatalaya haddaadan afkaygii Soomaaliga aadan igugu soo gudbin karin wixii aad ii soo gudbinayso hadii aadan iisoo fidin karin oo iisoo gudbin karin waxa aad igu matalaysay adigoo Soomaali afkayga hooyo igu hadlay igaga qabtiraya sideeba aad igu hogaamin kartaa sideeba aad ku doonaysaa in dadkii kale xataa oo ajnabiga ahaa ay kugu xushmeeyaan ama nagu xushmeeyaan haddaanu nahay dad afkoodii ka cararaya marka arintaas waa arin annagoo dhan aan u baahanay inaan ka fakarno ubadkeenii afkii waa u ka tagay Soomaaligii wuu si daba gaaban yahay idinkii hogaamiyaasha ama annagiiba aan dhahe haddaanan ahayn haddaad tahay qof matalaya bulshadii haddaad tahay hogaamiye bulshadii matalaya waa inaad horta marka ugu horeysa aad mar walba oo aad bulshadaadii aad matalaysa ka hadlaysid aad afkoodii ku hadli kadib oo aad tusi kartid dadkii kale ajnabiga ahaa in aad afkoodii afkiini ku hadlaysid qiimeynaysid si ayagina ay ku xushmeeyaan laakiin haddaad adigu afkaaga ka cararaysid seebo qofka ajnabiga ah annaga noo xushmeynaya haddaad eegto dadka Latinaga la yiraahdo ama Isbaanishka ku hadla meel walba oo ay tagaan afkoodi bay xoojinayaan haddaad aragtid dadka Hindida meel walba oo tagtid afkooda ayay xoojinayaan dadka ayaga matalaya afkoodi kama leexleexdaan haddaad aragtid dadka Asianka ama Indiyarka afkoodi ayay xoojinayaan oo marnaba kama leexleexdaan haddaba haddaanu nahay Soomaali maxay tahay kuwana matalaya iyo annaga laftigeena sababta aan Soomaaligii iyo afkeeni hooyo ugaga meermeeraysano taas ma tahay mid caqli ah haddii la yiraahdo luqadda Ingiriiska wadankan aan ku noolahay generationka hadda anigoo kale ilmahayga yar 19 jir baa igu weyn alxamdulillah uma baahna 19 jirkayga inaan Ingiriis ku hadlo Ingiriiska waa u garanayaa cidna ugama turjumayso laakiin hooyooyinka anoo kale ama iga waaweyn oo afkii uu dhibayo ood matalaysid ama aabayaasha waaweyn oo afkii uu dhibayo kuwaas ayaa loo baahan yahay inaan afkii intaan xoojino Soomaaligii meel kasta oo aanu joogno ku matalno oo ilmaheeni luqadii sidan horeba u sheegay waa ay ka fogaadeen waa ay ka tageen sababta maxay tahay dadkii hogaamiyaashii annagoo kala hadaaban luqadii ka tagnay sideebay ubadkayagii luqadii u xasuusanayaan oo u xoojinayaan haddaba ha lagu noqdo dib aan ugu noqono luqadeena aan xoojino dadka aan matalayno waa inaan luqado aanu ku matalayno aan xoojino qofka ajnabiga ah asagu ha soo wato qof turjumaan ah oo u turjuma luqadeeda Soomaaliga ah si uu u fahmo waxaan ku hadlayo